maantiyo maalintii koobaad ay tahay Ciidul Adha isla markaasina dadka muslimiinta ay u dabaaldegayaan munaasabada Ciidul Adha ayaa samafala Sheekh Faarax Ali Cismaan oo isagu ku sugan dalka Kuwait waxa uu maanta deeq xoola uu soo gaadhsiiyay dadka ku dhaqan deeganada kalabaydh iyo hara kuwaas oo ugu talagalay inay kaga faa'iideystaan munaasabada Ciidul Adha awgeed samafala Sheekh Faarax Ali Cismaan oo isagu dadka muxsiniinta ee ka soo jeeda gobolka Gabiley ayaa mar walba ka shaqeeya arrimaha khayriga waxana uu sheekhu caan ku yahay taakulaynta dadka jilicsan iyo dadka danyarta deeqdan ariga ee samafala Sheekh Faarax Ali Cismaan oo maanta soo gaadhsiiyay dadka ku dhaqan deeganada kalabaydh iyo hara ayaa ugu talagalay inay kaga faa'iideystaan munaasabada Ciidul Adha awgeed deeqdan ayaa uu ku soo hagaajay Sheekh Faarax Ali Cismaan aadan rugo isagoo odayaasha ku dhaqan degmada Wajaale waxana maanta si rasmi loo gaarsiiyay deeqdan ariga dadka ku dhaqan deeganadaasi khadar cabdillaahi telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley.